warwaay salaamay halka waxaan soo galay inaan dhowr qodob idhaahdo dadkii aadka u xanaaqsanaa ee igu xanaaqsanaa fiimiis qoje maxaad soo dhaweysay laba yar baan oranayaa fiimiis qoje waxaan isku yahay waxay ahayd aragtidii ahayd Somaliland way jirtaa iyo ma jirto Somaliland wad ka mid tahay iyo kama mid fiimiis Somaliland inay ka mid tahay aragtidii ahayd bay qaadatay anigana madaxaas ii saarantay waa marka koobaad marka labaad haddii ay noqoto xukuumadda Somaliland naag igaga macaarad adkayd oo igaga afxumay may soo marin intii qaranka hogaamiyaha ka ahaayeen Cabdiraxmaan Ciro naag igaga adkayd may jirin intii qaranka madaxweynaha ka ahaa laakiin maanta Cabdiraxmaan Ciro wada qurux badan oo qaaday macaarad inaan ahay heerkayga mi gaadinaan kaga soo horjeedsado sool shalay isku turturkeena faraha badan leh bidin ku weynay maantana haday soo noqonayso anigu iskuma turtuuri karo anoo Cabdiraxmaan Ciro ku xumeynayna igama hor istaagaysa inaan soo dhaweeyo fiima qoje bilow qurux badan baan arkaa wada qurux badan baan arkaa bilowga quruxda badan aan arkaa waxa weeyaan fiimiis qoje waxay dadkii ugu adkaa dagaalka sool anna halkan dadkii ugu adkaa ee halka hubka ku fasaxa dilada haybaan iyadna saas oo kale yahay cilma qabaanigu dad haday dhinteen fiimiis fadada way ka dhinteen daawa hadalkeeda daa waliba dhiig baxbi dadkoog badan aan dhinteen ilaa inagu dhakhtar iyo waxbaynu haysanay dawladna waynu ahayn ku darso maxaan ku lahdaa isoo sheeg dhimashana hadalkeeda daa dhaawacna hadalkiisa daa sidoo kale maxaan ku lahdaa xarig haday noqoto saraakiil baa ka xiran oo waxa ka xiran xildhibaano oo waxa ka xiran dad xasanaad leh bilowga quruxda badan in arko ayay ka mid inay soo noqotay fiimi sidoo kale wadada quruxda badan ee madaxweynaha qaranka Somaliland oo maanta qaaday inay ku bogaadinayaan waxa kamid ah sida uu wajahayo arrimaha sool saameyn bay nagu wada leeday wax u gaar ah maaha Cabdiraxmaan Ciro maanta sool haday soo noqoto Cabdiraxmaan Ciro sool Somaliland buu uga tagayaa isagu ma sii qaadanayo haday ma sii xambaarnay wuxuu joog durtaba 2 sano iyo barba Cabdiraxmaan Ciro u dhamaatay labadaas sano barka aan buu hayniyo iska labadaas sano barka haray ee kala uu buu hayniyo iska tag Somaliland iyada halka joogto ka tagaya waxa quruxda badan oo qabtay maanta inooga tagaya inaynu markaa waxyaalaha wada khuseeya inaynu wada taageerno oo aynu garab istaagno xaq baa laynoogu leeyahay anigu maalinkii dhowtoona soo dhaweeyay fiime Yuusuf waxaan gutay waajibaad uu qarankaygu igu lahaa xaqiiqatan kuma Cabdiraxmaan Ciro kuma macaaradi karo Somaliland anigu run baan idin sheegaya dadkaan Somaliland wax tarin suweer awalna waxba tarin ee aniga igu dhagan waxaan u sheegayaa anigu suweer awal dagaal aan u galay dartii jeel baan ku galay qadiyada suweer awalnimada aniga 30 cisha la jiijiiday wax dagaalna waxba kama tartaan maxaan ku raadaysan sheegay nabadna waxba kama tartaan Muuse aad ka sheekaynaysaan waxba kuma idin soo kordhin ana Muuse u dhintay dartii ana 6 subaxnimo intaan gurigayga uga baxo ayaan soo noqon Muuse intaan ololeynay Muuse bixi guriyaha wada jigtano marawaxada idinku baxay Soomaali garan wajigaygaasi heede cadceedu intay dishay nooc kala u ekaaday maalin waxaan tagayay miyada intaan buur xidho carruurtayda anagu waan raaxaysan weynay intuu Muuse bixi ololihiisa lagu jiray naagihii shalay toole marka ay daawanayeen markaan marbasaa u balaslaynayay baa maanta oohin halkaa la soo fadhiya naya anigu markay hawshu taagantaan wax ka qabtaa hadhow ma ooyo hadhow waan dhamaystirtaa hadday guul darro iyo guul wixii raaca waan qaataa cod dheer waxaan ku leeyahay anigu waxaan u taaganayaa calaamadda Somaliland xidigayga yaran xidigihiina waa la igu daray anigu markii hore 2 xidigood baan haystay
حدك سويرا ولا يحدك الساق سوما يدي كران حدك تي صدحاتنا دراد بان سوق عطيو صدح ديقول الله أنا هيانو قادر سوما يدي كران يقا قلايا مركا يقا أفسامينا سيدي نوكلا دان يوروب جوغي لعايل مادي ريلانوكو دالكا اسكولان كدسي لها waxaan ka dhisi lahaa maxaan ku risa shaqay ceelbaan qoodi lahaa masaakiintan caawin lahaa soo mid kara idinkuna maxaa la dhahaa heer idinkoo yurub jooga dalalka adduunka ugu qanisan jooga ayaa waxa maalin kasta koomba idin taala TikTok ku soo rida obax cimaamad baan leeyahay weligay miyaad aragteen anigoo cimaamad leh Afrika hada jooga hadaba anigu meel kastoon kala saameyn baan ka leeyahay madaxweynaha maanta waan bogaadinayaa arrimaha soo sidoo wajahan ku bogaadinayaa madaxweyne boqonta ku qaban mayno dhabarkaanu ka dhirbaaxayna waan ku dhinac istaagaynaa markaad arrimaha soo wajahayso markaad Soomaaliland wajahaysa arrimaheeda anigu madaxweyne boqonta ku qaban maaye waan ku dhinac istaagayaa cid kasto qabanaysana waan dhinac istaagayaa ina boqonta la isqabto foolxumadaynu ka dhaxalay sool baa inaga gooday in macaaradnimadu meel xun la martana sool baa inaga gooday anigu maanta wax kale sii goyn maayo anoo aarsanaya Soomaaliland dumin maayo ilmaade rayaalow waan salaamay anigu waxaan taaganay calaamadda Soomaaliland fiimayso qurche qof yaroo iska iisiya maaha garaadada xataa libinteedii bay sheegteen waxa iyadu soo bahalaysay oo iyadu soo wilaan wali soo bahaysay ay ku dhaxdhaceen ilaahdeen dagaal laakiin naagtii bilowday ayuunba bilow qurux badan sameyn karta bilowgii faashax ma dadkii bilaayo aan ka midnay aniguba ka mid baan ahaa maantana bilow qurux badan ayaanu sameynaynaa ku heshiinay salaam alaykum